السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا waxaan u daynay in markii hore aan isku ogeyn in hal qof noo hadlo sababtoo dadka waqtiga aad u dheeraa laakiin waxay ka fursan weydii in niyad wadaag la muujiyo qof waliba hadla leeyahay waxaa hubaala dowladnimada Soomaaliya waa mid nugul marxalado adag iyo caqabado badan soo martay u baahan mar walba in loo tiro haddii aynaan gacmaha isqabsanin oo aynaan fiirinin dowladnimada aan doonayno iyo nooca ay u soconayso oo nooca baarlamaanka doorashadu ay tahay midda beyska u ah ilaalinta dowladnimada Soomaaliya waxaan la kulmaynaa caqabado badan iyo dhibaato arrimaha qaarkood haday dhacaan waxa adkaanaysa in xal laga gaaro sidaa daraadeed waxaan aad u soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha iyo golahan wadatashiga qaranka maalmahan doodii u socotay oo beyskeedu uu ahaa wadankan badbaadadiisu maxay ku jirtaa doorasho in la aado sida ugu dhaqsaha badan doorasho ku dhacdo kalsoonida dadka la soo celiyo taasina ay saldhig u noqoto inaanay dadku qaadanin damaca dhibaato dhacaysa iyo maxaa dhacaya see wax u dhacaya waxaan ka cudur daaraynaa inayna mar dambe inugu soo noqonin khalkhalkii amni darro ee dhacay ana u mahad celinaya laamaha amniga iyo ciidamada qalabkiisa guud ahaan inay aad isu xakameeyeen ilaaliyeenna wadanku inuuna gelin xaalad adag taas macnaheedu wuxuu noqonayaa waxa aan ka fakaraynay waa la isqaban siyaasad baa lagu jiraa wax badan baa la iskaga hor imanaya laakiin baysku inuu yahay wadankan inaan garanayno wadanka aan ku noolahay midka uu yahay waxaan ka mid ahaa lifaaqa aan raacinay hadda heshiiskan oo saldhigiisu uu ahaa si aan la isu qabsanin dowladda dambe ee doorashada kadib imanaysaay khaaridatu dariiqii ay mari lahayd ama road mapkii ay qaadan lahayd in isagana lagu talagalo si loo qaado tallaabooyin oon maalin walba la isu weydiinin xaggeen wax ka qabanaa iyo xaggeen qaadnaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacabka gobolka banaadir iyo caasimadda oo had iyo jeer deganaansho iyo tanaasul badan muujinaya inay u dulqaataan wax kasta oo caqabada oo iman karaya dadkuna erayada qaarkood oo inta badan dadku isticmaalaan oo taariikhda iyo sidan iyo waxbaa la soo maray odhan intii laga gudbo maanta iyo mar walba aynu soo qaadanno dowladnimadeenna meeshaan aadayno seen hore ugu soconnaa intaa ay ku dhammaato iima muuqato dhan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo sababtoo waxaan soo marrayna waa wada garanaynaa waddankeennu midkuu yahayna waan garanaynaa waxaan ka codsanayaa oon uga mahad celinayaa mar labaad beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashadaas siday uga dhici lahayd si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay u tahay aad baad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad buu mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaan markana mikrofoonka ugu yeerayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميالك بارلمانك فدرالك الصومالية رئيس الوزراء كحجينك قدومية كحجينك مدحوينياشا دولة القبلية الصومالية مدحوينياشا هوري رئيس الوزراء ياشا هوري قدومياشي بارلمانك هوري dadkii inta iimaanayo dhan gudoomiyalka baarlamaanka waa ka tagayeen marka waxa ii muuqatay inaysan culays ku haynin
oo aysan u tirsanayn oo cidda ay ku hartay allaga unay tahay marka guddoomiyaalka hore ee baarlamaanka golaha wasiirada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada beesha caalamka shacabka inta ka soo qayb galay munaasabaddan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii munaasabaddan iyo farxaddan galabta aan inta isugu nimid oo shirkii muddada soo socday looga guungaaray loogana guul gaaray inaan maanta qayb ka ahaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay muhiimadda shirkan iyo munaasabaddan waxay ahayd kommunikeegii uu noo akhriyey wasiir ku-xigeenkii warfaafinta waxa la soo maray waxay ahaayeen wax muddo dheer soo socday oo looga hadlayey mustaqbalka soomaaliya iyo sidii caadada ahayd isbeddelkii doorashadii la yaqaanay oo wakhtigeeda ku dhici jirtay say ku dhici lahayd shirar badan iyo talooyin badan iyo isu soo jiijiid badan iyo isu tanaasul badan kadib waxaa ilaahay nagu guuleeyey maanta wixii la soo maray waa la soo maray maanta inaan gebagabadii iyo gunaanadkii aan joogno adinka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkana ay markhaati ka yihiin annagana nagala rabo heshiiskii aan galnay inuusan mar dambena dib u soo noqonin sidii loogu heshiiyeyna uu u fula haddii ilaahay yidhaahdo annaga haddaan nahay isteydyada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo xukuumadda federaalkaba si qalbi fiicnaan ah wanaag ku jiro soomaalinimo ku jiro turitaan ku jiro tanaasul ku jiro ka warqab iyo u turis shacabka soomaaliyeed ay ku jirto yaa waxaan u qaadannay mowqifkan hadda aan soo saarnay oo aan u arkaynay kan ugu habboon oo maanta dalka soomaaliya uu doorasho ku geli karo oo ahaa kii lagu soo heshiiyey sidii loo fulin lahaa waxaan idinka ballan qaadaynaa oon dadka soomaaliyeed oo dhan u ballan qaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doonno dadka soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan nin kasta oo soomaali ahna uu heli doono cadaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranayo iyo kan wax dooranayoba uu cadaalad iyo amniba uu heli doonaan ka shaqayn doonaa waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaraha madaxweynaha federaalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiiskan suuragelintiisa iyo isu keenistiisa inta ayaan u mahad celinayaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad aan mahadsan tahay madaxweyne cabdicasiis markana waxaan mikrofoonka ku soo dhoweynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدومك لبضا قوله لبضا أقل رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدحوينها ياشا دولة حمناك دولة فدرالك رئيس الوزراء كحيينك madaxweynayaashii hore ee jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaarayaashii hore guddoomiyaashii hore yaana ka tegin cabdicasiis ay qabsanayeen golaha wasiirada iyo baarlamaanka labada heer dowladeed ururada bulshada rayidka ah
gabdhaha dhalinyarada wakiilada beesha caalamka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waa maalin weyn waa isu hambalyaynaynaa waa isku bogaadinaynaa munaasabaddan qaaliga ah oo qiimaha badan ugu fadhisa ummadda Soomaaliyeed oo lagu dhammaystiray ama lagu khilaaftiray heshiiskii doorashada 17 September 2020 runtii waxay noo tahay maalin farxad leh inaan joognana aan ku faraxsannahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii gacan ka geysatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si gaar ah waa ku bogaadinayaa waana ku ammaanayaa hoggaankiisii hadda waqtigan la joogo khilaafka lagu soo gabagabeeyay sidoo kale waxaan ku ammaanayaa madaxda saaxiibada ee dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo runtiisii aad iyo aad bisayl iyo tixgelin badan ay ku jirto uga qayb qaatay heshiiskan waxaan soo kale u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo horay u soo hogaamiyey heshiiskii 17 September lagu gaaray magaalada Muqdisho waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed dulqaadkii iyo sabarkii ay muujiyeen kadib markii ay la kulmeen waxyaabo aan farxad gelinayn mararka qaarkood iyo isjiijid sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa siday mararka qaar u ilaaliyeen ama ugu dadaaleen in la ilaaliyo dawladnimada iyo xasiloonida iyadoo runtii la soo maray waqti adkaa oo waddanka uu geli gaaray ama uu qarka u istaagay inay timaado qalalaase dib noogu celiya waddo aan ka soo kabanay oon ka soo laabanay ilaahay fadligii waxay ahayd go'aan iyo talo aad iyo aad looga fiirsaday oo ay ka wada qayb qaateen dhammaan madaxda qaranka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah in waddadaa laga soo laabto dalkana maanta heshiis doorasho mar labaad lagu galo halkan ama lagu dhaliil bixiyo lagu turxaan bixiyo heshiiskii hore loo gaaray waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wakiilada beesha caalamka oo mar walba garab istaaggooda runtii joogto ahaa hadday tahay arrimaha heshiisyadan iyo doorashooyinka iyo hadday tahay guud ahaan garab istaagga dawladnimada Soomaaliya mahad celin kadib waxaan maanta soo gaarnay sidaan hore u sheegnay guushan iyada ah runtii waxay ku timid inaan isu samarnay inaan isu dulqaadanay inaan isu tanasulnay dhammaanteen ma ahayn oo kaliya madaxda goobta fadhisay shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed meel ay joogaanba qayb bay ka qaateen heshiiskan waa la wada dhiirigeliyey waa la wada riixayey waa la soo wada dhaweynayey waxaa laga yaabaa mararka qaar in la wada qanco inay culus tahay runtii waana culus tahay laakiin waxaan mar walba xoogga saarnay si loo wada qanco ama loogu dhowaado inaan cadaaladda ku dhowaano kala duwanaansho badan iyo kala aragti duwanaansho waxaa laga doorbiday sida wax ku dhammaan karaan sida dalku doorasho xor iyo xalaal ku geli karo waxaan rabnaa inaan halkan maanta ka ballan qaadno ilaahayna aan ka rajayno inaysan nagu soo laaban hakad ama khilaaf ama wax keeni kara niyad jab ku dhaca ummadda Soomaaliyeed heshiiska doorashada maanta la galay dalku doorasho ku gelaya insha Allah meel ay Soomaaliya joogtana waxaan leenahay oo ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan la weyn meeyo mararka qaar tabashooyin la weyn meeyo cabasho iyo si un wax loo tabanayo waxaa muhiim ah inaan isu wada dulqaadano inaan isu wada sabarno inaan danta guud ka eegno ee wax danaha gaarka ah oo dhan laga gudbo waa sidii hore saaxiibada u xuseen waa ballan qaadaynaa waa ku dadaalaynaa
inay dhacdo doorasho midda ugu xalaalsan aan ku dadaalno sidaa darteed hana lala qaado hana la isgarab istaago hana la isu kaashado dhammaan wakiilada beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa siday hore soomaalida u garab taagnaayeen inay garab nagu siiyaan arrimaha doorashooyinka iyo dowladka Soomaaliya horaan markii ugu soo saarnay qodobada muhiimka noo ah iyo qodobada ay tahay in dowladdiska Soomaaliya inta ka dhiman la dhameystiro oo waqtiga doorashada kadib la dhameystiro aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaanteen waxaan wada leenahay doorasho xor iyo xalaal ah dalka uu galo iyo inaan mid ahaano doorashada saas ku dhacdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye waxaan markana u yeerayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدعوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قلاها شعبك قدوميها أغل كسرة رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدعوينها ياشا دولتها حبناك دولة فدرالك مدعوينها ياشي هوري الصومالية رئيس الوزراء ياشي هوري الصومالية قدومياشي baarlamaanka ee hore gudoomiyaha gobolka Banaadir culumaa u diinka musharaxiinta siyaasiyiinta haweenka dhalinyarada iyo xubnaha bulshada rayidka ah iyo wakiilada beesha caalamka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo guud ahaan marti sharafka bacda salaam waxaa ilaahay mahadiisa maanta inaan gaarnay heshiis ay ummadda Soomaaliyeed wax badan sugaysay iyo inta wanaaga Soomaaliya jecel in maanta heshiis wada ogol la gaaray Allah ayaan ugu mahad celinaynaa cid kasta ee gacan ka geysatay ama tala ka geysatana waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay runtii dulqaad badan la muujiyay dadaal badan la muujiyay tala badan la isdhaafsaday ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha oo hogaaminayay wada hadalladaas xaqiiqdii waxaan qirayaa in dhabar adeeg badan la suubiyay cid kasta ee gacan ka geysatana waxaan leeyahay waad mahadsan tahay sida wada ogsootihiiba dalka Soomaaliya wuxuu joogaa xilli uu ka kabanayay horumar iyo maaragtay wanaagna dhammaan la wada qaatay runtii aad ayaan ugu faraxnay heshiiska la gaaro maanta waxaan leeyahay cid kasta ee gacan ka geysatay waad ku mahadsan tahay waxaan ballan qaadayaa in aan qaybtayna ka qaadano dadaalka dalka Soomaaliya doorasho xur ah oo xalaal ah lagu gaarsiin haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxa kaloon rabaa in halkaan ka cadeeyo qoondada haweenka dowlad goboleedyada ugu badnay ayaan kamid ahayn 2016 qoondada haweenkana sanadkan insha Allah waa xaqeeji doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo runtii sidaad wada ogsoontihiin dowladda Hirshabeelle iyadoo doorasho ka soo baxday oo daruufo badan ay ku xeeran yihiin sida fatahaado iyo dib u xoreyn ka socoto deegaano badan oo kamid ah dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan haddana waqtigeena ugu banay gelinay dalkan sidii doorasho nabad ah oo isla ogola oo lagu wada qanacsan yahay sidii uga dhici lahayd ayaan waqtigeena ugu banay gelinay insha Allah waana rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed doorasho ay ku wada qanacsan tahay oo dhammaan la isla ogol yahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo ay ka dhici doonto dalka Soomaaliya cid kasta ee gacan ka geyso waan u mahad celinayaa insha Allah waana garab istaagaynaa wax kasta heshiisa ee la gaarayna siday tahay ayaan u fuli doonaa ra'iisul wasaarahana waa ugu mahad celinaynaa waana la shaqay doonaa sidii dalka Soomaaliya doorasho ay uga dhici lahayd nabadoo la isla ogol yahay
wixii la isla gartay ama dhammaan wixii aan u aragnay inay xal u tahay ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu soo saaray warmurtiyeedka insha Allah heshiiskaas la gaaray ee ummadda Soomaaliyeed cid kastoo danayso wanaagga iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed ay maanta ku faraxsan tahay sidoo taan u fili doona hadii la raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay hambalyo in maanta la gaaray heshiis wax badan la sugaayay iyadoo cid dhexdhexaadisa aysan jirin in Soomaaliya ay xalkeeda garatay wixii u danana laga fikiray dhammaanna tanaasulaad badan la wada muujiyay la iskuna raacay in dalka doorasho ay ka dhacdo oo xur oo xalaal ah runtii waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweyne cali cabdullaahi xuseen cali guudlaawe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle khudbaduhu waa noo sii dhiman yihiin waxaa noo dhiman khudbadihii madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaasha labada aqal iyo madaxweynayaashii hore sidoo kale xubno ka mid ah wakiilada beesha caalamka laakiin maadaama dadku ay xoogaa yar caajiseen wax yar waxaan kuma dadaalanaynaa kooxda kalamaan waxaan ka codsanayaa kooxda kalamaan inay aad u soo koobaan maadaama wakhtigu uu aad u kooban yahay وسأس إبقى برجع لما كلام مقنا نبأ لما كلام مقنا لما كلام مقنا هو حاجة مدحويني رئيس الوزراء لبدي قدومي بارلمان madaxweynayaashii horena waa yimideen madaxweynayaashii maamul goboleedyaduna waa joogaan mucaaradka iyo muxaafidkii waa joogaan marti sharaf kaloo tiro badan waa joogaan alla ilaahay waa la soo xaadira khayrna allaha ka dhigo waa kooxdii kalamaanoo kaftankeedu badnaayo raadiyo kulmiyaad ka dhagaysan jirteen runta waa ka jafaane kaalintiina ka qaata dadku waa kalamaane laakiin maanta waa isku uur oo waa isku ujeedo oo wax meel kale u kala jeeda ma jiraan heshiiska shirku shaaciya shifiya khayr laga shinsa heshiiska shirku shaaciya shifiya khayr laga shinsa عبد الله سون وضمه نبض وايه هشيس هي عبد الله سون وضمه هنده بدك هذا هي هاتري وانا بيشان وملي سون وضمه عبد الله نبض وايه هشيس هشيسه ها ومحل لقى هشي وحال لقى هشيه وحي لقى هشيه ويا لقى هشيه هم اللي اسكا هشينا يا محل لقى هشي هذوك ما هشيس كانت كهور جدا هل لقى هشيه هو فار لما ربه war heshiiska kama horjeedo aanu musharax aan baa heshiisana dadka ugu baahi badane maxaa lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay doorasho lagu heshiiyay dibkana waa laga heshiiyay doorasho soo lagu heshiiyay doorasho lagu heshiiyay heshiiskii waa naloo sheegay annagu heshiiska ma annaan ogeyne bal saaxiibo waa ogtaa intaan soo dadaalay itilmaan ma lay dooranayaa baa isleeda adiga ha in lagu dooranaya ha itilmaan miyaad itiri horta ha nin waxaa taa xoog leh haye nin waxaa taa dheer quruxna u dhashay lafaadna leh haye xoogna ka muuqdo haye laakiin waxay kuugu taallaa doorashadu xoog maahine
ورساسي تلمان كما أوراني وحنك أوران لها هدير ده دوب دانا هيدا مركي قراتو يدوغا لو مرايو loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisay diiwaanka ay daawad dhigataa ummadi dawlad noqotaaye kala durugsanaan iyo khilaaf door ma dhaliyaan Allah ilaahay waxaan kuugu darayaa kelmadda igu dambaysa igu dar heshiiska maanta la gaaray waa inuu hirgalaa weliba oo hirgalaa aad u mahadsanta doorasho la rabaa lagu leeyahay sax waa doorasho waa la rabaa laakiin doorasho xoog meel ma wada galaa rabitaan la rabaa waxa xaqee usraha la saameeyo waxa ku dhacay ya usraha la saameeyo adiga isla hadalkayga waxba kuugu ma jiraan wax warso warba la heshiis ma la heshiiyaa waa la heshiiyay oo maxaa lagu heshiiyay waa lagu sheegi doonaa nabadgelyo cabdulla waa ku salaamay ay taaban horta gacantaada iga celi karoona fayrasaa jire war talaalkii saddexaad baan sugayaa afka ka hadal cabdulla waxaan ku weydiiyey ma lagu daray ya ma lagu daray waxaa lagu diray heshiiska shirka wixii aan anigu rabay oo dhan ma lagu daray oo waxaad adigu rabto dhan xay ahaayeen wixii aan rabay anigu aan doonayo dhan ma lagu daray adeerow rabitaan qofeed meesha laguma dirin rabitaan qofeedna lama rabaa waxaa la rabaa danta guud waxay rabaana la rabaaye wixii danta guud ku jirtaa la rabaa wixii dan gaara watana garabkooda allaha galo gartay ummadda ay duruufaha kala duwan shacabka ku nool gacanta isha farhayga gelineen wad war ummadda dantii ummadda waaye ma lagu daray danta ummadda ma lagu daray waaye heshiiska danta ummaddu danta guud kuma jirta miya mad adigu ummad gaara maad sheegay mase ummad caadi oo ummad Soomaaliyeed aad ii sheegay xoogaa dantayda siyaasadda ka dhex arki waayo oo adiga dantaada danteed siyaasadeed baa yar ee soo daneesta waa la diiday waxaad sheegi rabta ii sheeg daneesta ciduma rabtay dan guudaa la wadaa okay waa kugu qaatay taariikhdu waa qaadanida balaayo ha ku qaadatay waxaad sheegi rabta sheeg taariikhdu waa tilmaan tagtiya waa tooga qoran taariikhdu waa tilmaan tagtiya waa tooga qoran toganaan iyo tabana qofba tii uu falo haddana ku tilmaaman yahay garaadkuna waa tayada hadba kiitaash la suro siduu u tilmaaman lahaa tubtii ku habboon rajada dan guud iyo tamarinteed talada wadar baa wacan go'aan lagu taabagalo Allah ilaaha waa runtaa sax waay taladu waa taas guud ee tangaara meel iska dhig hal la iska dhiga war dan guud aan qaadana tangaar huwa nadi Abdullah wala heliya lankano wala heliya laari laheli niyow ها يا هلي حيسان لو هلي wax ka siteen war aan halal ay wal halay magarne leheli wakaari يا هلي oo halay kara bismillahir rahmanir rahim maylaray masgoroto maylaray maswarsati kuhum wal heli safay dalin heli sidii fadayna walan heli wixii haleeya inaysan haleynaan ku sheega mar dambanaysan haleyne ii sheega farta igu fiiqo qofkaas waxaleeya idhax ama dadkaas waxaleeya adama heliska diidinta ya heliska diidinta halaaska waa diidanahay halaas waa nacab wal heli safay dalin heli niyow had ka wada Soomaali oo dhan helidi wadadii faylahay ta keeniyeen waan sidii faylahay ta keeniyeen halawda laakiin hadda waa ka hagaagta ya wixii haleeya baa halawde hadda waa ka hagaagta maygalaha maylaray maswarsati kuhum sheeke wala heshiiya fado haytamaada wala heshiiya fadaasma wala heshiiya fadaasma wala heshiinin hata wala heshii wala haleeya hadina wala heshiiyada kin hatoy wala heliya kare laakiin wala heshiiti kin hatoy maylaray sadwal had wala kana hawo sadwal hadna wala kana gaadu sadwal hadna naharis ilaahay wala eray guursitay mu guursin wala kana hawo nikaasadayna wala kana gaadaw nuuno ay dhaladina naharis ilaahay oladii wala kana hawo odyala ka fadheedana nagaashu walka heliina naharis ilaahay
هاي kaseed كس abaaradhiidi walla ka nahawu واصح abaaradhiidi walla ka nahawu naga qubadayna walla ka nagaadu nahariis ilaahay nimadiis la helayna nahariis ka daru nahariis oo nahariis la ka daru ma ilaahay nimo ku kuf nahariisna ka taraaraha walla ere kasteed waxaan u kasay dib oo dhan in naxariis ilaahay ka dambayso in naxariisu dhacdana loo baahan yahay walheli mayga laha rooba gubaday rooba dhulka rees nagadeeraan soo abehe miskeela rasaysade rooba gubaday waa mahadsantaa rooblahaad sheegta waa sax waaye roob la waa joogaa heshiiskan iyo arrimahan iyo inta kala qayb qaadatana hambalyaan u diraynaa hambaliye ka lahaanina haye may kale intaas indheer dalkun iyoonay dadshay una diintana furgaangu iyoonay ma adduunyada noolba dawliin baahnaayeen dalkun ii dadshay diinteen furgaange duunyada nool dawliin baahnaaye waldaneeyaw dawliin baahnaaye waldaneeyaw dawliin baahnaaye aadaad u mahadsantaa aniguna waxaan dhihi lahay sida loo dadaalayo quruxdeeda wanaaggeeda markaan arkay hilibkiis ku yiiloon hayba u dhaxaynoon sida naftiyo suraynin baane baaqi heshiisko hambalyo baaqi heshiisko hambalyo waa mahadsanta anta koofidis aad u qabtay jilib la duubay allahu akbar ya warheshiiska xagga loo jeedo warheshiiska ma lagu daray اعترافki Soomaaliland اعترافki Soomaaliland ma lagu daray heshiiska waxa ku jirta waa la akhriyo in heshiiska Soomaaliland la heshiyo waa lagu daray oo ma ku dhibay adigana mikrofoonka la tagi kal soo kan mikrofoonka kan orodor nabadgelyo jeegada dad moodo koran xawaala ka duuda أري عبد الله واكم الله نبض مشاك نبض يهشيس على وشي وحال لقوه الشيء وحي حموضا إلا قه الشيء يا حيطة يا هذا النفط هذا ولا قه الشيء وحال لقوه الشيء يا كوري وحال لقوه الشيء دورشا لقوه الشيء تنقو إذا دورشا لقوه الشيء doorasha lagu heshiiyay dhiboodana waa laga heshiiyay waayaha tan guud iyo doorasho dadka dhama wada yaaliyo shaqo guud waaye tan guud ha wax dan gaar siya ma jira meesha dan gaar looma baahna dadka dan gaar ah ka wada dhintay ilaahay aqliga ha noo soo celiyo dan gaar looma baahna dan gaaruhuna danta guud ay ku jirtaa taas aan isla fahanno horta ليه وين وحجرة ده كموداي adigu qof dheer oo inuu aqli leeyahay aan u maleeyaan kumooday tan guuda meesha u taagan miyaad leedahay tanta guuda tanta gaaruhu ku jirtaa oo tanta gaarina war yaa islaam war adigu tanta leedahay sheeg niw dhageyso sheeg ninka kumooda ma hidi hawdka iyo qofkii beer ka fala meel hilliya duura haaro iyo ma horo xaga timiyo qodax huluushay balse uma hakado oo macno u halgamayay haruurka u muuqdiyo nimcadu ka bacan doona xariifki iyo ishaaranka iyo danaha hooseeya anigoon hilmaamin dadkana hiil u noqonaya hasha naga dhaxayso candhada daran la haaneed inaan kala hirqado aanaha gubi horaadkeeda inaan kala hirqado aanaha gubi horaadkeeda heshiis aysan ku jirin waa inaan hiifa gabigiis ay taani waxa laga heshiiyay waxaad hadda ii sheegtay fiiri warniyo ku salaam alaykum wa alaykum asalaam liweyno aragtay tan guud u taagna waxa la yiraahdaa warniyo fiiri kaala waxa tagi ee dhaqaajin wixii laga heshiiyay aad hadda wadaa waxaana kuu sheegaa hadda maarta hadda waxaan lagu heshiin inaa hadhow lagugu heelinayn hadda waxaan lagu heshiin hadhow lagugu heelima haddeer waxaan lagu heshiin hadhow lagugu heelima haye jeegada tay lagugu heelma
hadda waxa lagu heshiiyay waxaan hadda lagu heshiiyay lagama yaabo ee iga tag ama dadka heshiis ka raacay heshiis ma iska raacay mar amba dadka raac ama dhinac uga baxan naga tagniyo mar wadadkan kala qalqaloocod u qabto baabuur qalibaya naga wata cabdillah waa ku salaam waan ka qaado waana nabad iyo heshiis waxaan nin dantoolayo tan yar daayar haysta caruur dugsi ay u dhigtaan oo mana mooga daruufta hadda taala dalkeena heshiiska ah dantayda ee akhyaartii ku dadaashay iyo dadkii soo garabsiiyay iyagoo isku duuban darajay mudan yihiin hambalyana waa u diraya allah ilaahay hambalyaad u dir anna waa kuula diraa waa la heshiiyey miyaad waa la heshiiyey waana ku faraxsanna doorashaa lagu heshiiyo la isku afkarta niyo in muddo aban marna xaggaa u eriyay marna xaggaa u eriyay mar xamaali noqday mar bacadla ku eegay marba aan dhinac walba u dhiga biilka carruurta waa ka badin waayay inaan kula faqana waa doonaya inaan kula faqana waan doonaya ila taliso sanadka haddaan doorashada isa sharaxa ka war waa isa sharici kartaa muwaadin Soomaaliyeed yaa ku diidi kara waa saxee in isa sharaxay lacagti ma hayo baashi farxiyadii ma haystay adigu doorashada ii sheegtay lacag kama aan wada hadlin aniga ee adigu heshiiska ku jirta qof aan lacag haysan inuu isa sharaxo heshiiska in la isdoortaa ku jirta horta hadhow weyn Soomaali bay noo wali soogna Soomaalidu waxay yiraahdaan faraan tufan lahayn wax ma duugaan waa garta kulliba baarlamaanka soo bixi doona waxay oran doonaan lacag waa qaadasho marka waxay igula qumanaan lahayd heshiiska in lagu daro in lacag la'aan la isku sharaxo waa ku fiicnaa lahayd laakiin ana aftaydu sidaas waa kula qabaa wixii lagu heshiiyay la hergeliha markii la hergeliya hadii lagu darana waa arkay hadii kalena dadku haday faraha ka ciyaaraan adiguna faraha ka ciyaar ala kulli xaal horta waa ku faraxsanay heshiiska anna waa sidoo kale waxaan kuugu darayaa wuxuu tamaniyo aadamuhu taabageliya sista waxa la qaadaa kolkii la isku tiirsado tafaraaruq iyo kala taga lagu tasooba tiraday walaala ah haday cudud istaageerto tawfiiq dhexdoodii haday tala wadaagayso tusan iyo wanaag bay helaan kuna tanaada taag mala abuur kuba sidii awr tabaadiya waa waxa tinta leega wood lagu tilmaama tira badan kolkay ururtay oo buurtay tamartiis waa ka dudumadu turqay taagay aragteene waana shay tilmaan noogu filan noo tusaale ah ma isugu tagnaateena waan toosin karaynaa waa isugu tagaynaa waana runta markaan isugu tagnaana teena toosi karaynaa sax waayo taas waa kula qaata صح هذه أدوات سلامة أنا تصور شرحنا وما هتصنت إن دي أولو ليسوا الربا أولو لا أنت أنا أقول عندنا ما أولو ليها يقار كذا نيه وحاجة قبصه يقط الحمد لله رب العالمين وراديك مية وادوك نقنق شبهدني ده هذا روح نص النقطة هشيد كله هشيد مسبح موجي هيا heshiis kan la heshiiyay musabbix ma og yahay maahino waa iska warsaynaa iyadana waa la iska warsan doonaa insha Allah haye warnabad gali alxamdulilaahi rabbil caalamiin ho abaal dadkii gaartaa guude go'aanka shirku guul ahaa abaal ninkii gaartaa guude go'aanka shirku guul ahaa abaal dadkii gaartaa guude go'aanka shirku guul ahaa go'aanka shirku guul ahaa waxba yaanaan iswareerinin waqtigu waa gebagebo orod badanaa jira kooxdii kalamaan waatan maanta wixii ay ku soo talagaleen iyo qorshahayni intaasaan ku soo koobaynaa yaanan sii badinaa aad iyo mahadsan yihiin waxda kalamaan madaxdu way soo galaysaa khudbadaheena sii wadanaynaa waxaan markan u yeerayaa uradii bulshada waxaan marka ugu horeysaa u yeerayaa gudoomiyaha haweenka Batuule Axmed Gaballe mudane gudoomiye soo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية قدوميها أقل كسرية قدوميها برلمان كقولها الشعبك رئيس الوزراء جمهورية الفدرالية الصومالية رئيس الوزراء كحجينك قدومي كحجينك برلمانك قولها وزير هذا مدحوينياش الدولة الجوالية ذا puntland jubbaland galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir xildhibaanada labada gole iyo xildhibaanada dowlad goboleedyada ururada bulshada dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay iyo beesha caalamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa anigoo ku hadlaaya magaca haweenweynaha Soomaaliyeed inaan shirkan guusha ku soo afmeermay u gudbiyo hambaliyada haweenka Soomaaliyeed meel ay joogaanba kuwaasoo aad iyo aad uga dhursugaayay go'aanka ka soo bixi doona wadatashiga qarameed ee ka socday dalka gaar ahaan xaruntan Afisyooni oo looga hadlayay sidii dalka doorasho loogu jahayn lahaa run ahaantii haweenku waxay wadeen ololo badan waxay ka qayb galayeen mar walbaba sidii guul loo gaari lahaa waxay lahaayeen talooyin iyo dhiirigelin waxay ka walwalsanaayeen in ay dhacdo wax aan wanaagsanayn ama dib u dhac uu dalka ka dhaco waxay mar waliba u taagnaayeen sidii Soomaaliya horumar iyo doorasho ay u aadi lahayd oo khilaafka gudaheeda ay uga xallisan lahayd tiraanyadii ilaahay naga reebay ilaahay subxaanahu wa tacaala na soo gaarsiiyey guushan inaan qayb ka noqono maanta ay ummadda Soomaaliyeed u fadhido iyadoo aan la kala maqlayn oo loo midaysan yahay waxaan uga mahad celinaynaa marka ugu horeysa ilaahay guusha uu na siiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin kadibna madaxdeena sharafta leh ee tanaasulaadka iyo qadarinta iyo qiimaha weyn u haysa qarannimada iyo shacbiga Soomaaliyeed oo wax kasta oo jiray ka hormarisay danta guud aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa uguna hambaliyaynaynaa una rajaynaynaa in Soomaaliya aysan dib u noqon oo halkaa ay ka socoto oo ay la tartanto adduunweynaha halkaa markaan uga gudbo waxaan jeclahay inaan ka hadlo arrinta ku saabsan qoondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka haweenka Soomaaliyeed marka la fiiriyo cadad ahaan waa tirada ugu badan bulshada Soomaaliyeed waxay bartilmaameed u yihiin ama ududhaxaad u yihiin ummadda Soomaaliyeed waana geesiyaal u soo halgamay qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed maanta meesha ay taagan tahay waxa hadda ka soo baxay shirka aad bay ugu riyaaqeen laakiin weli waxaa muuqata inay dabacsan tahay kelmadda ku aadan in la dhaqan geliyo 30% inay haweenku ka helaan doorashooyinka soo socda kelmadda loo adeegsaday ma aynaan sugayn waa ka dardaaranay waa ka hadalnay inkastoo miiska talada aynaan fadhinin oo ay raggeenu fadhiyeen haddana waxaan aaminsanayn in raggeenu ay iyagu laftigoodu wakiil naga yihiin oo ay soo saari doonaan wax u qalma gabadha Soomaaliyeed ee Soomaaliya halgankeeda iyo hawsheeda u taagan waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho talada dalka dhinac kasta waxaan marka soo jeedinaynaa qaabka loo qoray 30% ee communique-ga ku soo baxday in la bedelo oo laga dhigo 30% waxa loo reebay doorashada soo socota gabdhaha Soomaaliyeed taasina waa tan xaqiiqada ah waayo 70% ka dambe waa lagu tartami karaa laakiin marka saan xaaladdu ay tahay oo doorashadu ay tahay mid dadban oo qaabka ay u fulayso uu yahay qaab dadban ma dhici karto in haweenku helaan xuquuqda ay ku leeyihiin doorashadaas sida awgeed waa in sharciga iyo go'aanka iyo communique-ga shirka maanta ka soo baxay oo ah kambayska u ah dhaqangelinta doorashada soo socota ay ku muuqataa dumarka qaybta ay ku leeyihiin doorashada ugu yaraan 30% waa loo xajisay
waa loo seefgareeyey waa u taallaa inay fuliyaan iyo qaabkii loo fulin lahaa iyo methodologigii la adeegsan lahaa ha dambeeyo oo ha la farsameeyo markaa kumikeega intiisa kale waa raacsannahay waa taageersannahay waa soo dhowaynaynaa laakiin ma aha waxaa la ilaalinayaa cid ilaalinaysaa ma jirto haddaan sharcigu ilaalinin haddaan la qeexin oo lagu heshiin oo waxa la isku afgarta aysan ka mid ahayn in la yidhaahdo 30% ugu yaraan gabdhaha Soomaaliyeed ayay u taallaa haddaan la lahayn waa la ilaalinayaa waa la dhiirigelinayaa waa laga yeelayaa waxaas hore ugu soo lugoonay mana qaadanayno mana ogolaanayno haddii aan haweenka Soomaaliyeed sida awgeed waxaan rajaynayaa in qodobkaas aad loo xoojiyo kadibna qaababkii kale oo loo dhaqan gelin lahaa doorashada aan u howlgalno dalkan haddaynan haweenka Soomaaliyeed u istaagin ama aysan u shaqaynin ama aysan dhexda u xiranin lagama yaabo inuu guulaysto guusha Soomaaliya waxay ku xiran tahay kartida iyo waxqabadka miisaanka iyo aqliga dulqaadka gabadha Soomaaliyeed ayay ku xiran tahay sida awgeed mar walba ayaga ayaa iskale priority-ga mar walba ayaga ayaa iskale inay helaan xuquuqdooda marka la eego dhinaca sharciga aad iyo aad u mahadsantihiin waa guulaysanay Soomaaliya oo dhan maanta farxad bay ku ciidaysaa xaaladihii adkaa waxa ka dambeeyay farxad rayn iyo walaalnimo iyo midnimo waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan intii u istaagtay oo gelisay waqtigeeda oo ku dadaashay inay ku soo dhamaato guushan oo Soomaaliya ay u dareerto doorasho aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan ballan qaadaynaa doorka aan ku leenahay inaan qaadano waa mahadsantiin aad ay u baasantahay gudoomiye batuulo waxaan jeclaan lahaa in dadka hadlaya inay kadib hadallada aad u soo koobaan maqribkiiyaan haya waxaan jeclaan lahaa inaan markan u yeero maadaama gudoomiyaha ay hadashay wasiirka haweenka xaniife maxamed ibraahim xaabsade wasiir soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها الشعب قدوميها عقل كسره رئيس الوزراء دالك رئيس الوزراء كحيين كي وزيرة دا قدوميها قبل كبنادر مدحة دولة قبل هذا مدحة دي هوره مدحوينيها شي هوره قدوميها شي بارلمان كي هوره رئيس الوزراء شي هوره madaxweynayaashii dawlad goboleedyadii hore siyaasiyiinta Soomaaliyeed bulshada rayidka dhammaan ummadda Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalintan la soo gaarsiiyay mahad oo dhan Ilaahay ay u sugnaatay oo noo suuro geliyay in lagu heshiiyay isqabqabsigii doorasho oo waddanka taagnaa waxaan bogaadinaynaa shirkii wada tashiga socday natiijadii ka soo baxday oo aan maanta isugu nimid gunaanadkeedana aan joogno haweenka Soomaaliyeed sidaad ogtihiin waxay welwel badan ka qabeen is-afgaran waaga siyaasadeed ee dalku soo faad saartay iyagoo ka soo baxay baaqa kala duwan iyagoo ku baaqay mar walba in dalka loo turo doorashada la aado waxaan ku faraxsanahay in hamigeeni aan ku taameynay inuu guuleystay oo dalka doorasho aaday haweenka Soomaaliyeed miiska ma fadhin waa lagu matalayay wayna ku qanacsanaayeen walibana waxay sugaayeen natiijada ayaamihii la soo dhaafay waxaan loobiin uga jirnay ama aan la kulmaynay dhammaan dawlad goboleedyada madaxdooda annagoo ka hadlaynay in communique-ga soo bixi doono lagu soo qoro qodobka qoontada qodob adag uu noqdo sida ay soo baxday hadda heshiiskii lanoo akhriyay qodobkii 5aad oo ka hadlayay kootada dumarka wuxuu leeyahay in la xal ilaaliyo waxaan ka hadlayno oo ka sii afeefanaynin intaas ay ahayd waxaan u maleynaynay maadaama aan sii afeefanay oo aan la kulannay dadkii u fadhiyay ama madaxdii u fadhisay shirka go'aanka loogu gaarayay masiirka dalka inay tixgelin doonaan codkeena ay qaadi doonaan nasiib daro ma dhicin wixii dadaal oo naga baxay hadda waxaan joognaa hala tixgeliyo ama hala ilaaliyo hala ilaaliyo su'aal ayaa ka timid oo ah yaa ilaalinayo see loo ilaalinayaa
haweenka Soomaaliyeed waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo bulshada barkeeda ah konton iyo balaas ah dalka inuu doorasho loo dhan yahay uu aado dhammaan muwaadiniinta Soomaalida ay doorasho aadaan ayay dantiisa ku jirtaa suuragal ma noqonayso in bulshada barkeeda dalka la ignore gareeyo barkeedu una dalka ay qaataan hoggaanka dalka waxaa xusid mudan in haweenka Soomaaliyeed hadda ay ku leeyihiin labada gole 24% halkii loo qoondeeyay 2016 30% ay suurtagali weysay hadda kalsooni dari aad u weyn ayaa taagan oo jirto taasoo haweenka ay ka muujinayaan welwel fara badan soo food saartay maadaama weli ay taagan yihiin hal tixgeliyo waxaan codsanaynaa in la soo saaro habraacaas oo muujinayo ama xuquuq siinayo haweenka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed loo xirin kuraas reservation seat la sameeynin rajadooda ma fiicna sidaas ajligeed waxaan codsanaynaa in la sameeyo reservation seats waxaan codsanaynaa in la sameeyo habraac xaqiijinayo qootada dumarka gunaanadka hadalkayga ma rabo waqtiga oo aad u kooban oo gabagaba ah inaan hadalkayga soo koobo ayaan rabaa gunaanadka hadalkayga dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa doorasho xor iyo xalaal ku dhacdo waxaan rajaynayaa in haweenka Soomaaliyeed ay ku guuleystaan 30% ayna ogaadaan in cid u maqan aysan jirin xaqna ay u leeyihiin ayna raadsadaan qootadooda ismuujiyaan ay ka soo qaataan ragga sidoo kale waxaan rajaynayaa in dhammaan qaybaha bulshada ay ka qayb qaataan doorashada dalka la doorto waxna doortaan iyadoo la ilaalinayo xuquuqda aadanaha iyadoo la dhowraayo dadka nugul ee bulshada iyadoo la ilaalinayo naafada waxaan rajaynayaa doorasho nabdoon dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa horumar iyo guul waxaan leeyahay dhammaantiin intii ka shaqaysay shirkan guuleystay ambalyo waxaa inoo balana doorasho waxaana inoo balan haweenka Soomaaliyeed inay xuquuqdooda ay raadsadaan 30% ilaa qiyaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad u mahadsan tahay wasiir Xaniifa waxaa nala jooga xubno ka tirsan beesha caalamka marka waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero Ambassador James Swan oo qaramada midoobay ka socda it's a pleasure that we have here today honorable guests from the international community I'm pleased to welcome Ambassador James Swan the United Nations representative of the Secretary General for Somalia you're welcome Your Excellency, Mr. President, honorable speakers of the House of the People and the Upper House, Your Excellency, Mr. Prime Minister, Excellencies, Presidents of the federal member states and the Benadir Regional Administration, former heads of state and government of Somalia, civil society organizations, women's representatives, members of the international community, ladies and gentlemen. The United Nations and Somalia's international partners present today welcome the successful conclusion of this summit between the federal government of Somalia and federal member states. We pay tribute to the Somali-led and Somali-owned process that produced this consensus. We commend the Prime Minister for his leadership of the summit and the presidents of the federal member states and all other influential leaders involved in the talks for their constructive approach to reach compromise. We thank President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo for his appeal on May 1 to revert to the 17 September electoral model, enabling a return to dialogue. We urge all stakeholders to move forward swiftly in the same spirit of compromise and cooperation to implement this agreement. We further encourage the FGS and FMS leaders to continue regular consultations throughout the electoral process to ensure any emerging disputes can be resolved quickly. These consultations should include other political stakeholders as needed.
The international community will remain vigilant to identify any political actors putting individual interests above those of the nation. To maintain momentum on implementation of today's agreement, it is important that updated timelines for the Upper House, House of the People, and presidential elections be issued as soon as possible. We also look forward to rapid establishment of election implementation bodies at federal and state level and full implementation of the Election Security Committee. We again urge all Somali leaders to honor their commitments regarding the minimum 30% representation of women in the electoral management bodies and both houses of parliament. The inclusion of women, youth, and minority groups in decision-making at every level is essential for inclusive politics, development, and peace in Somalia. We call for freedom of expression, including media freedom and freedom of association, to be safeguarded. Elections are a time when different political opinions compete, and the space to do so without violence or intimidation must be protected. We underscore that the holding of peaceful elections will then allow Somalia to get back to business, to move forward with key national priorities such as security, development, and economic growth that have languished during the recent regrettable political impasse. In closing, we call on all of Somalia's leaders to implement the agreement reached here today in good faith and with full commitment. The United Nations and international partners support you and stand ready to assist further in this historic undertaking. Congratulations on this important agreement, and we look forward to Somalia holding inclusive and transparent elections without further delay. Thank you. aad iyo aad u mahadsan yahay wakiilka hooyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan sidaad arkaysay waxa uu soo dhaweeyay heshiiska ay maanta madaxda Soomaaliya halkan ku saxiixeen oo baaragtay bi taariikhi ah waxa uu ka hadlay oo u mahad celiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo dib u eegis ku sameeyay heshiiskiisa 17 September waxa sidoo kale uu sheegay in madashu ay had iyo jeer lahaato kulamo joogto ah oo haddii khilaafyo ay soo baxaan arrimahaas ay xaliyaan waxa uu ka hadlay in timeline ama waqti loo qoondeeyo waqtiyada ay dhacayaan doorashooyinka inay muhiim tahay sidoo kale arrimaha qoondada haweenka ayuu soo qaaday marka dhammaantiin waxa qiyaasaya inaad wada garateen khudbadaasi waxaan markana aan u yeerayaa ambassador Madiera oo ka tirsan midowga Afrika. You're welcome. Your Excellency, President Mohamed Abdullahi Farmajo, Your Excellency, the Speaker of the House of the People, the Honorable Speaker, Your Excellency, the Speaker of the Upper House, Your Excellencies, the Presidents of the Federal Member States, and the Governor of the Regional Administration of Banadir, Your Excellency, President Sheikh Sharif, former President Sheikh Sharif, Your Excellency, former President Hassan Sheikh, the members of the civil society, the religious leaders of this country, Your Excellencies, members, political forces in the government and in the opposition, ministers, ambassadors, my colleagues, ladies and gentlemen, women, youth, everybody. Excellency,
I asked to take the floor just to convey to you the message by the chairperson of the African Union Commission, Mr. Moussa Faki Mahamat, who asked me to say that the African Union is very, very happy with these important developments that we have witnessed over the last few days. After months of tension and political uncertainty, the national genius has spoken and the Somali wisdom has prevailed. The agreement that has been eluding us for so long has now become a reality through the use of Somali-owned dispute resolution mechanisms. This shows, Mr. President and Excellencies, that you have the instruments, the tools that will make this country a very, very, very great country again. Your Excellency, the Chairperson of the African Union Commission conveys his greetings and congratulations to the people of Somalia and to their entire leadership. For as far as the African Union is concerned, it is all about the people. It is all about listening very carefully what the people want. And he commends President Farmajo because after listening clearly to what the people wanted, he did not hesitate to put aside his preferences and appeal to the people and go to the parliament and ask the parliament to reverse a decision that he had taken. It is about the people because the Prime Minister Roble, after listening to the people, he has accepted this great challenge of facing the impasse that the country was in. Take it and accept to go to the election and organize the elections and ensure the security of elections in a very uncertain moment. It is about the people. When he quickly moved and reached out to the youth, to the elders, to the business community, to the political leaders, to everybody, to women, and managed to draw a consensus. And he realized that what the people wanted was to effectively go back to the negotiating tables. It is about the people because the federal member state presidents listened to Prime Minister and he told him, we are going back to Mogadishu without preconditions so that the people can experience peace. Mr. President, this is all that the African Union wants. That you all have your ears attentive to what your people say. Because people never lie. People never go wrong. As long as you continue to listen to them, this country will be great again. Mr. President, we only look forward to the establishment of a follow-up mechanism that can effectively implement the wishes that the federal member states presidents, that yourself, Mr. President, that the Prime Minister, that the speakers, that the former presidents have said, these should not be allowed to fail. This agreement must not fail. Excellency, that mechanism is extremely important and we will be attentive to support. Finally, Mr. President, I have been instructed to say that we accept the challenge as African Union. We accept the task
that you are giving us in terms of helping you to secure this election and move forward. Thank you, Excellency. Thank you for your remarks. waxaan soo gabagabeynaynaa xubintii u dambeysay baasha caalamka waxaa marti ah oo noo joogay maanta nala joogay wasiir ka tirsan ama wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ee dalka Sweden oo aan halkan ku soo dhaweynayo. We are also honored to have here today in this ceremony the Swedish Minister for International Development Cooperation, Mr. Per Olsson Frid. You are welcome, Mr. Frid. Thank you, Mr. President, Mr. Prime Minister, speakers, and presidents of the federal states, all protocol observed. Allow me to express my appreciation for this opportunity to participate in this National Consultative Forum. This is a key event, manifesting the Somali determination to agree on a peaceful way forward towards elections. I salute Prime Minister Roble for his insistence on bridge building and dialogue. I commend the state presidents and the mayor of Benadir for their role in forging this agreement, and all here today that is supporting this process and will help ensure that this is brought to a successful conclusion. I'm pleased to represent Sweden here in signaling our strong support. Swedish-Somalia relations run deep, not least thanks to our large and vibrant Somali diaspora. Continuous dialogue will be key throughout the implementation process. A mechanism for regular dialogue between the federal government and the states is essential to resolve the issues that may arise. Women need to be an integral part of the political space and leadership in Somalia, and we welcome the vision to achieve at least 30% women in the new parliament. This is a good first step towards equal rights and opportunities for all women and men in this country. With election in place, Somalia can now move forward and implement an ambitious reform agenda. And let me mention three aspects. First, federalism, and the important role of the federal member states is key in the continued state-building process in Somalia. Second, as soon as this election process has been concluded, the work towards future democratic elections begins. And this includes adoption of the electoral law, and in the coming months and years, local and state elections will be building democracy from bottom up. Third, a constitution is the foundation of any stable state-building process, including rule of law. Somalia security services in a federated structure should be able to ensure safety around the country. Looking towards the future, we see how climate change imposes new challenges on farmers and people in local communities around this country, the region and in the world. And a stable, inclusive and democratic Somalia will be better able to deal also with those challenges. In closing, inclusive, democratic and peaceful societies are not a give and take in today's world. It's a choice that we make and that we have to make every day. Democracy and equal rights for all, women and men, are in our hands to promote and to protect. For ourselves, but primarily for future generations, so tomorrow's generations can choose their own destinies and not inherit the challenges and conflicts of today. The future of Somalia starts here, it starts today, and it's in your hands. Thank you very much. aad ugu mahadsan yahay markana
dareenkiinana amaahiya khudbadihii ayaan sii bilaabaynaa waxaad ila soo dhoweysaan oo aan jeclaan lahaa mikrofoonka inaan ku soo dhoweeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ومالين كلا وين وتاريخ ذا صوماليا ذا عصب الديمقراطية ميلوين كيجري دون تهدي الإيران ما أنت ومالين أي صور دمادين مددر وعبسي بدن أي سعودي ولا عبسني حق الله سعودي حق الله سعودي أن لك الجرنين مدن يا المروين haddii aan wax yar dib u milicsanno xaaladda aan ka soo badbaadnay ee dalkeenna iyo muhiimadda ay leedahay munaasabadda maanta dalkani mushkiladiisu kuma koobnayn oo keliya hay-adihii federaaliga ahaa oo mandatekeedu dhammaaday laakiin waxaa ula jirtay kala qaybsanaan hay-adaha iyagoo mandatekoodu dhammaaday ay kala qaybsameen sida baarlamaanka dowladaha nidaamka federaalka ee dalka oo lafsidiisa kala qaybsamay iyo ugu dambeyntii ciidamada qalabka sida mushkiladahaasoo dhan marka xaalad waxay keentay dalka in aanu ku sii sugnaa karin meeshii muddooyinkan dambe uu ku sugnaa oo loo baahan yahay in hore loo socdo hore loo dhaqaajiyo si ay u xallismaan mashaakilaadkaasoo dhan loona helo waxa looga gudbayo oo mar walba ah heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah oo dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo mustawa kastoo ay lihiinba ay raalli ka ahaayeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii dadaalkaas ka soo qayb gashay oo dhan muxuu ahaay madaxweynaha uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada mas'uuliyiinta golaha midowga murashaxiinta oo intaa ayaguna cod dheer ku kabaya mar walba waxa ay u baahan tahay Soomaaliyada cusub ee dimuqraadiga ah waxaan goobjoog ka soo ahayn waayihii dambe wixii dhacay oo dhan heshiis kasta in kasta oo aan inaan ka qayb galno aan jeclayn haddana heshiis kasta oo la gaaro oo ku saabsan doorashooyinka midowga murashaxiintu waxay u taagnaayeen taageeradiisa maalin walba warqad ay soo saarayeen ujeeddaduna ma ayn ahayn inay heshiisyadaasi ama qayb ka ahaayeen ama qodobada ku yiil in badan oo ka mid ah xataa ay raalli ka ahayn ama ku faraxsanaayeen laakiin dalka inuu hor u socdo oo ay aaminsanaayeen berri inay maanta ka sii fiicnaan doonto oo la gaari doono berri qurux badan oo maanta ka fiican guud dhammaan muxuu ahay dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno maanta meesha la jooga intaas mabaadidaas iyo taageeradeenna iyo xuduurkeenna joogitaankeenna midowga murashaxiintu wuxuu ku salaysan yahay taageeradaas soo jireenka ahayd ee weligeedba aan la garab taagnin isku dayadii hore ee la soo sameeyey tanna aan la garab taagnin kasokow inaan cabirno ra'yigeenna iyo wixii saxda nala ahaa ee Soomaalida casriga ah ee dimuqraadiga ah ay u baahneed meesha aan taaganahay maanta micnaheeda ma aha wax kasta inay dhammaadeen laakiin waxaan leeyahay maanta meesha aan taaganahay micnaheedu wuxuu yahay wax kasta waa bilow albaabkii ayaa la furay waddadii la mari lahaa ayaa la feeday in la qaado waddadii oo la mara kama dhib yara albaabka maanta la furay sidii loo furi lahaa waddadii dheereed iyo dadaalkii loo soo maray walaalayaal waxaa iga xasuusin ah in aan qofna laga tegin hayaankaas waddadaas la maraayo qof kasta waa noo muhiim qofna quursi ma galo saddexdaas shay inaan qofna laga tegin qof walbana uu muhiim noo yahay qof liita iyo qof la quursanayaan aanu jirin waa midda keliya ee meel sanna geynayso waayihii la soo dhaafayna in badan oo ka mid a waa ku caanan baanlay waxa keliya ee aan u baahannahay waxay tahay isqadarin isu turid iyo dulqaad loo sameeyo kuweenna gaabinaya waana ku soo caanan baanlay inaan sidaa yeelno muddooyinkii la soo dhaafay ee dhan oo aan ku soo jirnay
safarka ugu dambayntii waxaan ku soo gunaanadayaa hadal jeedintaydan kooban dhaxalka keliya ee aan uga tegi karno jiilasha soo socda ee soomaaliyada dimuqraadiga ah ma aha ama inuusan ahayn sii haysiga kursiga ama talada markaas aan joogna mustawa kastoo aan leenahay ma aha midda ugu sarraysa keliya laakiin mid kasta mas-uuliyadda la isu dhiibo ee xilliyaysan inaan sii haysanno ma aha muhiimadda ugu weyn waxa ugu weyn ee ay tahay inaan muxuu ahay sooyaalka siyaasad wanaagsan inaan dalka jiilasha soo socda inaan uga tagno waa sooyaalka siyaasad wanaagsan oo loo aayo inaan u abuurno u dhisno aasaaskeedii u taagno ugana tagno waxaa tusaale aad iyo aad muhiim u ah oo aan xusuusanno mar walba dibna u imanna ah tii uu noogaga tegey allah u naxariistee madaxweynihii ugu horreeyey soomaaliya oo xor ah mudane aadan cabdulle cismaan waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado maanta guul iyo farxad iyo ku naalooshaan joognaa waa il oo kale guusheenna maanta ishuna waxay u baahan tahay in saxarka si aad oo aada looga ilaaliyo guusha maanta aan joogno waxaa suurtagal ah hal kelmad oo qof mas-uula uu yidhi inay wax badan ka bi'do waxaana suurtagal ah hal kelmad oo qof kaloo mas-uula yidhi inay gaarsiiso meesha aan la jecelnahay ama aan la hiigsanayno aad iyo aad ayaan u rajo fiicannahay aad iyo aad ayaa kalsoonida maanta taaganna ee u dhan tahay wixii la soo maray waaye aragnimo iyo khibrad noogu filan waxaan u soconno ayaa nooga muhiimsan ayadana kuma rajo xumin waa ku rajo weynaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shirka iyo madasha iyo heshiiska la gaaray maanta waxaa hambalyaynaya dad kala duwan oo soomaaliyeed iyo madax badan oo fursad u helin inay halkan ka hadlaan oo qaarkood nala joogaan iyo qaar badan oo bannaanka ka soo hambalyaynaya guushaan la gaaray isla markaana ugu hambalyaynaya madaxdii shirkaa ka miro dhalisay waxaa khadka noogu jiro oo aan 2 daqiiqo u ogolaan doonaa oo soo dhoweyn doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan laakiin waxaa ka horeeya oo inta ay wiilashu noo soo galayaan oo qofka soo gelinayaan aan soo dhoweynayaa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed mudane madaxweyne soo dhowow بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدحوينها جمهورية الصومالية قدوميها برلمانكا قدوميها أغل كسرة رئيس وزارها رئيس وزارة كحيانكا مدحوينياشا مامور قبلات يدا مدحوينيه هورا قدومياشي هورا رئيس وزارياشي هورا كلها برلمانكا golaha wasiirada bahda saxaafadda culamaa diinka haweenka dhalinyarada saraakiisha ciidamada dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iskama iloobin safiirada u fadhiya dalalka daneeya soomaaliya sida UN-ka iyo dowladaha kale runtii maanta waa fursad aad iyo aad u wanaagsan aan nafteenna iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka jecel dadka Soomaaliyeed baan ugu hambalyeynayno guusha la gaaray waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo anoo ku hadlayo magaca midowga murashaxiinta ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada dadaalkii ballaaray ay ka geysteen in la soo gabagabeeyo wada hadalka ku aadan doorashooyinka sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha inuu ra'iisul wasaaraha u ogolaaday inuu shaqadan hogaamiyo asaguna waa ku mahadsan yahay intaas markii aan ka gudbo geedi socodka dowlad dhismadu horteennana waa jiray haddana waa socdaa horena waa u jiri doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxaa wax weyn ah
si kastoo loo kala aragti duwanaa iyo khilaafku meel kasta oo uu gaaray maanta halkan inaan ku heshiinay ama madaxdii wadahadalka ku jirta ay heshiis ka gaareen marka anoo ku hadlaya magaca madowga murashaxiinta waa soo dhawaynaynaa sida walaalkay madaxweyne xasan oo sheegay annaga mar walba talo iyo soo dhoweyn ayuu ahaa doorkeennu ujeeddada ugu weynna waxay ahayd dalkan inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaal ah oo natiijadeeda la wada ixtiraamo waa ognahay soomaaliya wakhti adag ay soo martay intii murankaanu socday waxaa jira cabsi fara badan walwal fara badan oo dadka mas-uuliyiinta iyo shacabka iyo dadka jecel soomaalidaba ay qabeen laakiin falilaahi alxamdu waxaan aaminsanaha maanta inuu soo gebagaboobay taas waa taariikh aad iyo aad u wanaagsan muujinaysa dadka soomaaliyeed markay wada fadhiistaan inay mashaakilkooda xalli karaan waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka muhiimka oo ah inaan dhidibada u aasno nidaam dimuqraadi ah xur ah xalaala dadka soomaaliyeed ay ku wada jiri karaan dowladnimadu ay ku hore ugu soco karto oo ah waxa lagu heshiiyey inaan la garab marin marka waxaan rajaynayaa wixii la soo maray dhammaantooda inay noo noqdaan maxaan ku yidhahdaa waxaan wax ku qaadanno oo cid danboo mas-uula ama cid danboo caadiya aysan garab marin heshiiska la gaaray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan rajaynaynaa inay fuliyaan wixii ay ku heshiiyeen una fuliyaan sida ugu wanaagsan oo keeni karta kalsooni dadka soomaaliyeed iyo dadka taageera soomaalida intaba intaas markaan ka gudbo dhammaanteen waa mas-uuliyadna saaran qarankaanu inuu u socdo horena uguma soco karo haddii doorashadiisa ay mugdi galo marka waxaa ugu muhiimsan inay noqoto doorashadii doorasho xur oo xalaala daah furan dadka soomaaliyeedna ay ku qanci karaan inay noqoto intaas markii aan ka gudbo heshiiska la gaaray mararka qaar waa nala xantaa waxaa la yidhahaa heshiis gaariddu waa idin fududdahay laakiin fulintu waa idinku adagtaha waxaan rajaynayaa inaan ka soo gudubno marxaladdaas jiijiib fara badan kadib maanta aan u diyaarsannahay inaan fulinno hareeraha ka wada istaagno doorashada in ay dhacdo deegaanada soomaalida oo kala duwan oo doorashooyinku ay ka dhacayso waxaan rabnaa inaan ka codsanno inay soo doortaan dad mateli kara dowladnimada macno u samaynaya qaran dhisidda fahamsan inay soo xulaan insha allahu tabaaraka wa tacaala hawsha noo taalla aaday u weyn tahay laakiin munaasabaddan waxaan u malaynayaa inay munaasab tahay in la sheego horena looga dhawaajiyey waxa la isku hayay siyaasaday ahaayeen colaad gaar ahoo shakhsiya ma jirin colaad qabiil ma jirin colaad degaan ma jirin aragti siyaasadeeda la isku hayay maadaama la soo dhoweeyey hadda in la iswada cafiyo caloosha la wada furo doorashada iyadoo dhinacyada aan la fiirinayn la wada galo insha allahu tabaaraka wa tacaala anoo magaca murashaxiinta ku hadlaaya marka annaga dhinaceenna waxaan soo jeedinaynaa cafi iyo musaamax wixii aan sheegaynay waa mahadsantiin aragti siyaasadeed ay ahaayeen wax kale ma ahayn intaas markaan ka gudbo halka qodoba ugu dambeeya shacabka soomaaliyeed inaan ka raali geliyo isjiijiidka iyo jahawareerkii soo maray meesha hadduu legdan ka jiro siyaasadu ka jirto sidii wax la filaayay ma noqon karaan laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa in la heshiiyey waa jecleen heshiiska inuu soo horu maro laakiin haddana waxaan leenahay in la heshiiyaa muhiim ah marka waa idinka raali gelina adinkana waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed waxaan qadka soo gelinaynaa oo aan jeclaan lahayn inuu noo soo koobo maadaama xilligii salaada lagu jiro madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan mudane madaxweyne hadaadna maqlayso waxaan jeclaan lahayn maadaama dadku salaadii hadda wakhtigeeda la joogo madaxdiina ay noo dhiman tahay inaad noo soo gaabiso soo dhowow
Recording stopped. waa mahadsan yahay madaxweynaha waxaan qiyaasayaa in farsamada ay yara ciladaysan tahay marka waa ka sii soconaynaa waqtigaana haya waxaan u yeerayaa markan mikrofoonkan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya mudane الله وبركاته. waxaan salaamayaa shirka kulaha wada tashiga qaranka inta ka soo qayb gashay oo arrimaha Soomaaliya ka wada hadlaya. waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne goboleedyada gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leeyahay go'aamadii la gaaray kuwa aad iyo aad u wanaagsan weeye danta Soomaaliyeedna ay ku jirto dib u heshiisiintii qaran oo la gaarayna waxaa weeye mid keenaysa in dalku horumar gaaro lana dhiso dawlad loo dhan yahay oo gobol walba laga gudoomo. waxaan leeyahay kama in la isqabsadaa loo baahan yahay. dalku waa kii burburay markii dawladdii maxamed siyaad barre Allah u naxariistay ay dhacday kadib muddo markuu burbursanaana ilaahay wuxuu qadaray inaan tagno Jabuuti oo lagu soo dhiso dawladdii ugu horeysay ee qaranka. maantana waxaa khayr ah muddo dheer dabadeed inay taagan tahay weli dawladnimadii calankii iyo madaxdii qaranka intuba. ilaahay mahadi weeyaan leeyahay horena waa u yidhi haddana waa leeyahay wax walba ilaahay baa subxaanahu watacaala ayaa yasira markay horta aan ilaahay barino hadday dawlad tahay hadday baarlamaan tahay hadday shacbiga iyo madaxdiisa tahay intaba ilaahay ha la baryo oo qur-aanka inta ilaahay lagu baryo ilaahu dalka khayr هل يرى doorashooyin ka imaan doonaan ilaahu kuwa khayr qaba ka dhig sida aan iraahno anuguna saasaan had iyo goor quraanka ilaahay ku baryaa oo aan ilaahu dalkii walaaye kastoo haysta ka dulqaad khayr iyo barwaaqana si dad khayr qaban u dhig. waxaan kaloo leeyahay mar walba waxa dantiisu waxay ku jirtaa isafgaradka dadka walaha ah oo gobol walba ka soo jeeda. si hadda ka hor dhacday gobollada qaar inay yidhaahaan tan ma rabno iyo tan ma rabno oo ay wax kale noqdaan maamul goboleed loo bixiyo dowlad goboleedna loo bixiyo waa dhibaatadeeday leedahay. haddaase waa dhammaatay hadda waa tan laysu wada yimid waa ugu hambalyeynaya dowlad goboleedyaduna. maqalkan wanaagsanayn aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa madaxweynihii hore Soomaaliya mudane Cabdulqaasim Salaad Xasan. runtii saacado badan ayuu qadku ka jiray oo uu rabay inuu dadka la hadlo aad buu u danaynay waxaana muuqanaysaa inuu qalbi wanaag iyo niyad wanaag uu hayo heshiiska maanta la gaaray guud ahaan inay Soomaaliya nabad noqoto. marka madaxweynaha waxaan leenahay maaragtay adna Ilaahay caafimaad ku siiyo
annagana maaragtay ilaah naga dhigo dalkeena kuwii horumar gaara gabagabadii aan soo gaarnay waxaan u yeerayaa oon markaana telefoonka ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa madaxda kala duwan ee dawladda federaalka ah madaxda dawladaha xubinta ka dawladda federaalka ah madaxdii hore ee Soomaaliya dadweynaha Soomaaliyeed ee maanta halka isugu yimid waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalin fiican sababtuna waxa weeye khilaaf inagu raagay oo muddo dheer aynu isku haysanay oo guul ka gaari weynay ayaa maanta halkan ku gabagaboobay oo aynu ku heshiinay inaynu doorasho qaran oo loo dhan yahay qabsano waxaan mahad u celinayaa dadkii ka qayb galay ee ku dadaalay in heshiiskaas doorashadu aynu qabsano waxaan se raacinayaa in heshiiska aynu gaarnay maanta ee ah doorasho inaynu galno aan guul ka gaarno oo si cadaalad ah oo madax bannaan oo xor ah aynu ku gaarno intaa kolkaan idhaahdo waxaan rabaa dhallinyarada Soomaaliyeed oon arkaayo xoogga ay leeyihiin oo boqolkiiba bulshada Soomaaliyeed ay yihiin kolkay ugu yar yihiin boqolkiiba 75 hal erey baan odhanayaa dalkeenna dhibta ugu weyn ee haysataa waa qabyaalad weyn idinku eedayn maayo sababta waxa weeye ka idinku weyn ee 40 jirka ahi haddee dawlad muu arag oo kolkuu ugu weynaa da'daasi 10 jir buu ahaa waxaad dhalateen dhammaantiin iyadoo aynaan dawlo lahayn oo ay ka daran tahay dagaallo reer hebeluuni ay jiraan waxaan shaki ku jirin inay saameyn weyn idinku leedahay laakiin codsigaygaan caawa idiin soo jeedinayaa waxa weeye walaalayaalow soomaalinimo midnimo isku dubnaantiin oo addiidaan in laydin qaybiyo qabaa'il laydin qaybiyo laysku kiindiro inaad diidaan weyn arrintaas markaa sidaa leehayna ereygaasi siyaasiyiintu u socda intaa anaa halkaasaan kaga baxaya waxaa maalmahan beryahan socday cabasho ay soo jeedinayaan waalidiin wiilashoodii tababar ciidan loo diray waa cabanayaan waxaan dawladda federaalka madaxdeeda u soo jeedinayaa in waalidiinta cabanaya oo sheegaya inayna ilmahoodii muddo 2 sano ku dhow ayna arag ay war kala yihiin waxaan madaxda sare ka codsanayaa ee dawladda federaalka waalidiinta in loo jawaabo ugu dambayn
waxaan u soo jeedinayaa hal arrin prime minister annagoo joogna baydhabo waa 2006 ayaa fanaaniin Soomaaliyeed noogu yimaadeen halkaas waxay noo sheegeen riwaayad bay noo dhigeen hal erey baan ka soo qaadanaya dawlo ehel bay rabtaa oo micnaheedu yahay fikir bay rabtaa aqoonyahan bay rabtaa aqoon u leh bay rabtaa ma aha aqoonyahan oo dhan waa inuu garanayaa dawlo waxay rabto ee uu qabanayo awowyadeennii hore waxay odhan jireen xoolo ugub ka gado ama curad aan in iyo xumaan midna lagu ogeyn waxaan leeyahay prime minister kulle xukuumadda waa la dhisayaa xukuumaddaa la dhisayaa haddee waxa weeye ama wiil iyo gabadh markaa jaamacad ka soo qalin jabiyey oo ku nasiibso ah sababta waxa weeye xoolo ugub ka gado micnaheedu waxa weeye yacni neef baad iibsanaysaa dhaqankeennii weeye neefka aad iibsanaysaa waxaa dhici karta neef aan curanin waad ku nasiibsanaysaa micnaha dhaqanka xoolaha caanaha ayaa sidaa loo lahaa ama curad aan iin iyo xumaan midna lagu ogeyn ama neef dhalay oo aan la yaqaano waxtarkiisa sidaa waxaan ula jeedaa madaxda aynu xukuumaddeenna u dooranayno inay noqdaan kuwo aqoon dawladeed leh kuwo shicibka Soomaaliyeed oo dhan inay wasiirro u yihiin ee aan noqon kuwa meel dad intaasaan ku soo gabagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsan yahay gudoomiye cabdi xaashi waxaan idinka codsanayaa waa xilligii salaada la joogaa dhammaanteen waa wada baxaynaa waa tukanaynaa waxaan idinka codsanayaa in dhaqdhaqaaqa la yareeyo socodka la yareeyo waa wada baxaynaa waxaan markan ku soo dhawaynayaa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ku soo dhawayn doona madaxweynaha waxaan idinka codsanaynaa inaad dhaqdhaqaaqa yareysaan mudana soo dhawow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها أقل كسره قدومي كحجين ككواد قلها شعبك رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدحوينياش الدولة قبل يدها قدوميها قبل كبنادر مدحوينياشي هوري قدومياشي هوري برلمان نضع كوي كميل قارك هايو برلمان كي سقالات مرتي الشرف تكله ضمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii maanta shacabka Soomaaliyeed waxay markhaati ka yihiin in golaha wada tashiga qaranka ballanqaadkii ay sameeyeen oo ahaa inay dhammaystiraan heshiiskii 17 September ay ku guuleysteen inay dhammaystiraan runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan dib ugu noqdo 1 May oo aad xusuusan tihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda fargelinta ama dhammaystirka 17 September iyo doorashada waddanka madaxweyne aad u mahadsan tahay waxaan u hambaliyaynayaa ra'iisul wasaaraha oo ku guuleystay in martiqaad uu u fudiyo madaxda dawladda goboleedyada
ayagana sidaasi oo kale waa u mahad celinayaa ayagoo ajiibay wax shuruudaanan ku xirin maantana guusha aan ku fadhino runtii heshiiskan taariikhiga ah wuxuu qayb weyn ka noqonayaa amniga shacabka Soomaaliyeed wuxuu qayb weyn ka noqonayaa dib u dhiska dalka wuxuu qayb weyn ka noqonayaa oo daawo u noqonayaa khilaafkii dhacay waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii hore oo halkan soo istaagay oo runtii si qalbi furnaana uga hadlay yiri hal iscafiyo marnaba hadalka inaan ku dheeraado maadaama waqtiga uu gaaban yahay maadaama aan ahay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan rabaa labada gole golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyo golaha aqalka sare haweenka ku jira tiradooda 30% way ka yarta waan ognahay annagoo dhan haddii maanta oo dhan qof walba mar soo istaago haweenka Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed lama soo koobi karo haddii culimadaanada halkan ay soo istaagto waxay sheegayaan laga yaabaa dhammaantaannada inaan khushuucno haweenka guud ahaan oo ilaaha abuuray hadday hooyo noqon lahayd iyo hadday walaal noqon lahayd iyo hadday xaas noqon lahaydba mudnaanta ay leedahay haddii ay noqon lahayd in suugaan iyo heese lagu cabirana waxaa laga yaabaa dhammaantaannada inaan khushuuci lahayn madaxda dowlad goboleedyada waxaan u sheegaynaa dhammaystirka 30% dowlad goboleedyadii idinka horreeyey runtii aadaa loogu ammaanayaa ayagoo soo dhoweeyey taqriiban 28% wax leeg aad u mahadsan tihiin waqtigoo ciriiriya waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo بسم الله الرحمن الرحيم وقت وعيري waxaan isku dayayaa inaan soo koobo gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo guud ahaan golaha xukuumadda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada labada aqal taliyayaasha ciidamada qalabka sida madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka federaalka madaxweynayaashii hore ee dowlad goboleedyada hogaamiyaasha ururada siyaasadeed ururada bulshada rayidka ah ay ugu horeeyaan culamaa udiinka ururada haweenka ururada dhalinyarada wakiilada beesha caalamka bahda saxaafadda iyo bambeyda marti sharafta kale waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan rabaa inaan kaga cunur daaro waktigii oo dib nooga dhacay waxay ahayd barnaamijkeenu inuu saa ka bilowdo
waxaanan idinka mahad celinayaa dulqaadkiina ilaah baa mahad iska leh oo mar walba noo suurtogeliya oo noo fududeeya kulamadan noocan oo kale ah khaasatan kulankan maanta aan isugu nimid oo ah gabagabada wadatashiga qaranka uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha ay qayb ka ahaayeen dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo gobolka banaadir sharaf bay tahay inaan idinkala soo qayb galo kulligiin aad ka soo qayb gashaan xafladdan aan ku soo gabagabayn aan ku soo xirayno wadatashiga guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyo noogu dhammaaday waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeenayaa ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo mar kale waxaad mudan tihiin bogaadin waxaad mudan tihiin sharaf waxaad mudan tihiin ammaan shaqadii adkayd oo aad qabateen oon ognahay oo muddada dheer soo jiitamaysay doodii adkayd aad soo gasheen 3 beri 4 beri aan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambaysay dulqaadkiinii faraha badnaa iyo dadaalkiinii ay ugu dambaysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay doorasho raalli laga yahay doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadanay oo aan wada aqbalnay waxa weeye guul yahay guul noo soo hoyatay annaga keliya ma aha waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rajadoodii iyo xamigoodii kor u qaaday maxaa yeelay waa inaan fahamnaa dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan deganaashay rabaan waxay doonayaan doorashay rabaan waana u diyaarsan yihiin marka runtii waa idinkaga mahad celinayaa juhdigaad geliseen maanta ummadda Soomaaliyeed inaad ka farxisaan aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinaya waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka hoggaankiis uu ku hoggaamiyey sida uu u casumay dowladaha xubnaha ka ah dadaalkiisii faraha badnaa uu dhabar adeegay uu u dulqaatay doodii faraha badnayd oo dhinacyo badan ka imaanaysay intaas waxaa dheer nabadoonnimadiis sida uu ugu dhex jiro waad ku mahadsan tahay ra-iisul wasaare sida runtii aad u hoggaamisay golahan wada tashiga ah ee wanaagsan si aad u hoggaamisay aad baan runtii kaaga mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo jidkan waa soo marnay khibraddeedana waa leenahay waxaan idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeedna idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ay idinka codsatay inaad hawshaan laydin xil saaray oo mas'uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hor u dhaqaajisaan doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyay u baahan tahay marka runtii mas'uuliyaddan idinkaas ka leh idinkay hadda idinku soo wareegtay the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa aniga kaalintaydu iyo shacbiga guud ahaan kaalintoodu waxaa weeye inaan idin kaalmayno oo aan idin duceyno oo aan idinkuu tufno oo aan idin barakayno waan idin barakeennay hawshaan waxaan idinkuu duceynay inuu ilaahay idin fududeeyo hawl sahlan ma aha dhammaystirkeeda waa naqaanaa ilaahay inuu idin fududeeyo oo doorashadan inoogu dhammaato doorasho nabada doorasho hufan doorasho xalaala murashax kasta qof kastoo muwaadin ah
oo doonaya inuu dalkiisa u adeego oo public service uu qabto inuu xuquuqdiisa uusan idinka waayin aad cadaalad u samaysaan waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqo koontada ama qaybta dumarka yaan rabaa hoos inaan ka xariiqo dumarku waa lafdhabarka bulshadeenna weeye waa hooyooyinkeen waa xaasaskeenna weeye waa gabdhaheenna waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdooda xaqiijisaan oo kootada la sheegayo oo ah 30% inaad muujisaan markaan inaan 40 gaarsiin karno hadduu eeba yidhaahdo cafiska walaalkay uu soo jeediyey madaxweynahaygii hore oo aan saaxiib ka nahay sheekh shariif waa wada qaadanay soo maaha anna waa idin cafiyey cafigiina waa qaatay aad aan iscafinay waa qaatay waana runtii wax loo baahan yahay inaan ka gudubno siduu sheegay waa dhab waxa weeye waa siyaasad waxaan ma aha qof nacbaysi ma aha suu sheega weeye marka cafiskaas ilaahay ha noo qaado qulubteennana ilaahay ha soo geliyo iyadoo dhab ah waxa weeye waxa ballan noo ah inaan diyaar u nahay ama aan u diyaar garownay doorashada insha allahna doorashadan waxay ku dhammaan doontaa guul wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Martida asayo, raja iyo